Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta adduunka ka joogtaan oo halkankii xuskaas soo noqon wanaagsan fadlan hadday tahay marka ugu horeysay ee channelka aad ku cusub tahay waxaa sharaf leh kaga codsanaya channelka subscribe noo saarto sidoo kale like-ta noo saarto aadna share dhahdo si maartay saaxiibo badan oo videogan u gaara muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ku noqon kartaa youtuber. Inta badan waxaa arkaysaa maartay dhalinyarada inta badan waxay doonayaan maartay inay noqdaan youtuber laakiin ayagoo maartay mar walba isweydiiyaan maartay sidaad ku noqon kartid inaad noqotid youtuber. Marka fursadan maanta mise muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sidaad ku noqon lahayd youtuber mise maartay aad waxyaalaha aad u baahan tahay iyo sida maartay aad riyadaadaas aad ugu rumeyn lahayd. Midda koowaad 2024 hadda dhamaanaya maartay waqtiga ugu fiican oo youtube-ka la bilaaban inay tahay waqti xaadirka ma aha berito ma aha waqtiga lasoo dhaafay waqtiga ugu fiican aad noqotay youtuber mise aad bilowday youtube-kaaga waa maantadan la jooga. So marka uma baahnid maartay inaad haystid kamera fiican, uma baahnid inaad haystid microphone fiican, uma baahnid inaad haystid maartay qalab fara badan. waxaa kaliya u baahan tahay inaad haystid waxaa waaye mobilekaaga haddii aad haystid waxaa haystaa kamera aad iyo aad u wanaagsan. Inta badan baryahan dambe waxaad soo baxeen mobile aad iyo aad tayadooda aad iyo aad u fiican tahay maartay kameradoodana aad iyo aad u wanaagsan tahay hadday noqoto iPhone iyo hadday noqoto Samsung ba. Marka kaliya waxaad u baahan tahay kamerada jaabka kugu jirto oo ah telefoonkaaga. uma baahnid inaad dukaan tagtid aad kamera soo iibsatid, uma baahnid inaad microphone soo iibsatid, waxaad ku bilaabi kartaa wixii aad haystid. Marka muhiimaddu waxaa waaye bilowga inaad marka hore aad kamerada aad shidatid aad soo hor fadhiisatid aad bilowdid inaad muuqaal aad duubtid. Marka waqtiga ugu fiican maartay youtuber la noqdo mise youtube channel aad furatid waa waqtigan maaha inta sano aad sugaysid inaad youtube furatid. Marka muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa maartay sidii maartay aad uga soo gudbi lahayd caqabadaas ku hortaagan mise ka hortaagan inaad noqoto youtuber mise aad samaysid muuqaala. Midda koowaad waa saan kuu sheegay uma baahnid kamera, uma baahnid microphone, waxaa kaliya u baahan tahay telefoonkaaga. Midda labaad waa inaad muuqaal samaysid, waa inaad kamerada soo hor fadhiistid, waa inaad kamerada ka cabsanin, waa inaad baratid maartay sida aad kamerada oo la hadli kartid. Waa inaad ka soo qaaddaa adigoo maartay dad la hadlaayay dad maartay la hadlaayo. Marka waa inaad baratid kamerada maartay marka hore bilowga hore way maartay waxay kugu noqonaysaa maartay waxaan caadi ahayn inaad maartay kamerada la hadashid adigoo maartay qofka hor taagnin mise qofka hor fadhinin. Marka waa inaad la qabsatid marka hore way ku yar maartay caadi ma noqonaysid laakiin waa inaad la qabsataa marka hore inaad kamerada soo hor fadhiisatid aad kamerada la hadashid. Ugu dambeyntii marka dambe shacab ay kugu soo xirmi doonaan maartay waxaad samayn doontaa community aad samaysan doontaa kadib waxay ku noqon doontaa wax caadi ah. Marka hore bilowga maartay waa strange kula noqonaysaa laakiin waa inaad la qabsataa. Tan labaad maartay waa inaad ka cajisin oo maartay markasta aad muuqaalo soo gelisaa. Haddii maartay howlaha iska badan yihiin oo maartay shaqooyin kale aad ku jirto mise shaqooyin aad ka shaqaysid 9 to 5 ugu yaraan waa inaad usbuucii hal muuqaal aad soo gelisaa. Marka wax la yiraahdo waxaa jirta consistency. Marka waa inaad mid hadda aniga maartay xagga iga haysto maartay cilada waa consistency-ga laakiin insha Allah hadda waxaan rabaa inaan maartay aan dadaalo insha Allah aan consistency aan sameeyo insha Allah wixii hadda kadib muuqaalo badan ay soo geliyo kuwa idin anfaco iyo kuwa kale oo badanba. Marka tan labaad waa consistency inaad ka cajisin muuqaalo aad soo gelisid maalin walba. Haddii maalin kasta soo gelin karin usbuucii 3 muuqaal hadda usbuucii soo gelin karin ugu yaraan hal muuqaal usbuucina soo gelisid. Marka tan saddexaad oo ah in aad youtube-ka aad u ilaalisid sida maartay adigoo xiriir qof la sameeyay. Haddii qof xiriir la samaysid oo xiriirkaas qofka la samaysid uu yahay mid maartay aan joogtayn ahayn dabcan xiriirkaas mid shaqeynaya ma noqon doono. Sidoo kale youtube-ka waa sidaas oo kale. Marka waa inaad xiriirkaada u ahaada mid joogtayn leh mise youtube-ka inaad u furatid si maartay hobby ah iyo waxay kala tahay inaad u furatid si maartay business ah. Haddii youtube-ka uu ka yahay maartay si aad hobby camal uu ka yahay maartay waqti hadaad iska soo gasho waqti kale aad iska maqan tahay taas dhib malaha. Laakiin youtube-ka haddii maartay business ahaan aad u soo gelisid maartay waa inaad joogtayn samaysaa, waa inaad muuqaalo soo gelisaa. Muhiim ma aha muuqaaladaada marka hore inay tayadooda aad iyo aad u wanaagsan tahay. Muhiimadda waa inuu
codkana waxaad heli kartaa microphone aad iyo aad qiimihiisa u jaban yahay ilaa iyo $30 ilaa iyo marka $50 ayaa heli kartaa, weliba ilaa iyo $30 ayaa heli kartaa. Marka muhiimadda waa codka iyo maaragtay xoogo yar oo iftiin ah. Ma aha in muhiim inaad soo iibsatid line aad qaali ah, maaragtay microphone aad qaali ah. Kaliya waxaa waaye inaad iska saxdid kamerada kastoo aftiin yar ay leedahay, codkan uu fasiix yahay, waad bilaabi kartaa YouTube-ka, maaragtay cid kaa hortaagan ma laha. Dhaqaale aad u fiican waa ka samayn kartaa. So guys, maaragtay muuqaalkeena halkan aan kusoo koobaya insha Allah waa part 1. haddaad muuqaalka ka heshay aad jeceshay inaan iisoo badiyo muuqaalada noocan ah, maaragtay sidoo kale aad idinka maaragtay caawiyo sida maaragtay kameradaas kaga sixi lahayd, sida muuqaalka aad u duubi lahayd, waxyaalaha maaragtay muuqaalada qurxoon si loo sameeyo, maaragtay haddaad u baahan tahay inaan idinka caawiyo waa comment ay igu soo sheegi kartaan insha Allah. Sidoo kale fadlan channelka subscribe-ta ka ilowina. waxaa doonaya maaragtay inaan community aan sameeyo insha Allah, maaragtay waxyaalo aad iga faa'iidi doontaan aan iisoo geliyo insha Allah haddii la yiraahdo. Marka guys, intaan muuqaalka kulmid waxaan ka tagayaa, fadlan moogana channelka subscribe saartid, like share-ta aad ay muhiim u tahay. Marka intaan muuqaalka kulmid waxaan ka tagayaa peace.